بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومركز أي أستاذ عبد العزيز halkan waxaan ku duubi doonaa caawa tusaalihii labaad oo ka mid ah lixdii tusaale luqadda HTML-ka ee ku yaalay bogga Form 3-ga gaar ahaan chapter-ka afraad ee Web Design and Development. Tusaalaheenan saddexaad caawa wuxuu noqon doonaa ama ciwaankiisu waxa uu yahay write HTML code qor HTML code ama abuur web page with some attributes kaasoo wata attributes ka soo dhiganay wax kamid ah web page baynu abuuranaa caawa ka bacdina waxay raacin doonaa attributes ka soo dhiganay laba kamid ah attributes ku waxa uu yahay iyo shaqada uu qabto waa ka hadalnay muuqaalka horena waa ku sheegay casharadana waa kusoo qaadanay waa erayo lagu dhex qoro taaga furan gudihiisa si ay inoogu maamulaan attribute si ay inoogu maamulaan HTML elementiga HTML element waxaan filayaa in la garanayo open taagana la garanayo waaye maxaynu markaa caawa samayn doonaa talaabooyinka la marayo marka koodka la qorayo ama marka web page-ka la diyaarinayo la qorayo xalay baynu soo marray afar talaabo ayay ahaayeen talaabooyinka baynu dib u qaadanaa web page baynu abuuranaa ka bacdina waxaan isticmaali doonaa laba attribute oo kamid ah attributes-keenu soo dhiganay kuwaas oo kala ah page color oo background-ka web page-ka lagu bedelo iyo href oo lagu sameeyo hyperlink-ga ama isku xidhka labada page lagu sameeyo waay marka hore waxaan soo kicinaynaa sublime text-geena ama editor kale aad isticmaalaysid markaas khasab maaha inaad sublime text isticmaashid waayahay waa kan waxaan sameynayaa file baan tegayaa new file baan leeyahay ka bacdina file baan ku noqonayaa waxaan leeyahay save desktop kan dhiganayaa ka bacdi waxaan u bixinayaa lesson2.html kadibna waxaan leeyahay save waaye filekaygu waan abuurtay waan save gareeyey waxa igu xigaya waxa weeye waa inaan web page-kii abuuro oo aan web page-kayga qoro sidii aan xalay u abuuray oo kale intii xalay un baan marayaa web page-kan xalay abuuray baan abuurayaa isaga laftirkiisii oo kale ka bacdina waxaan raacin doonaa attributes-ka waayahay waxaan qorayaa HTML aan waa soo koobiyaa adigu waxa la yiraahdaa caadi u qor laakiin anigu si shortcut aan u qoraya halkan title-ka oo kale xalay kuma ayna qorin title laakiin title waa raacsan kartaa tusaale waxaan dhihi karaa lesson 2 inta marka aan qoro waxaan sameynayaa web page-kayga waan diyaariyey sulaymo oo dhan HTML code qor ka bacdina isticmaal attributes-ka soo dhiganay wax kamid ah hadda HTML code-ka waan qoray waliba waxaan qoray code fara badan oo web page iyo abuuraya waayo attribute baan raacinaya attribute-ka koowaad ee aan raacinaya waxa weeye waa inaan background-ka ka bedelo tusaale haddii aan halkan b tag aan qoro aan fariin soo daabaco oo aan dhaho tusaale ku soo dhawow barashada HTML intaasaan qoray waan save gareeyey ka bacdina right click baan idhi open in browse baan idhi saan u arko result-ga waxaan qoray waa kan waxaan qoray hadda saan igu soo baxay web page-kayga waa kan halkan oo kale waa title-kii haddaan halkan si wacan ku tuso halkan kana waa title-kii web page-kayga waa kan ay ku qoran tahay lesson 2 baa ku qoran waa title-ka web page-kayga web page-ka fariintii b tag aan ku qorayna waa tan good waxaan doonayaa marka intaan marka shaashadan ballaaran ee cad ee halkan ah waa body tag-gii intaan wixii body tag gudihiisa lagu qoray ayaa intan ka soo baxa waxaan doonayaa marka body tag-gan inaan background-ka ka bedelo background-ka marka la bedelayana waxaan soo sheegnay in la isticmaalo attribute la dhaho page color waayahay waxaan ku noqonayaa marka code-kaygii waxaan tegayaa body tag ayaan tegayaa maadaama aan rabo inaan body ka bedelo background ka bedelo marka waxaan tegayaa body tag furan sababta aan tagay waxay tahay background-ka marka la bedelayo waxaa la adeegsadaa attribute la dhaho page color attribute-kana waxaan odhanay waxaa lagu qoraa tag furan gudihiisa marka body tag furan baan tegayaa dabeetana waxaan leeyahay page color then waxaan leeyahay equal ka bacdina double quotation ma furayaa kadib halkan waxaan gelinayaa color-ka aan doonayo in aan ka dhigo background-kayga hadda green baan qoray buugga green qoray marka buuggan raacna markasta waan save garaynayaa markasta oo aad qoraal qortid save garee haddaadan save garayn halowta output ka heli maysid
marka aan beige color green ka dhigo kabacdi waxaan sameeyaa right click baan leeyahay open browse baan leeyahay macnaha waa soo kicinaya si aan u arko resultigi waad aragtaa hadda baarigii web page-kayga waxaa laga dhigay green baa laga dhigay waa ka green baa laga dhigay waayahay su-aashan oo kale assignmentigii ayay inoogu jirtay aan soo diyaariyey aan idiin soo diray marka haddii lagu dhaho baariga web page-kaaga background ka bedel intan baad qoraysaa baari taaga frame baad tegaysaa kabacdi beige color baad qoraysaa kabacdina waxaad leedahay green ka dhig intaas baad qoraysaa waayahay hadda waxaan isticmaalnay attribute koobaad oo beige color ah waxaan isticmaali doonaa attribute kale oo la yiraahdo href kaasoo laba page isku xidha waaye inta aynan attribute-ka href adeegsan marka hore waa inaynu abuuraa page labaad web page labaad kan lesson 2 baa la dhahaa mid kale oo lesson 3 la dhaho ama wax kale uu aad ula baxdid ayaynu abuuraana si aynu labada page isku xidhno maadaama href aynu odhanay laba page bay isku xidhaa buuggu sidaas laba page uma samaynin kaliya wuu qoray uun laakiin inagu si aynu wixii isula fahanno laba page baynu abuuranaa kabacdina waa isku xidhanaa waayahay file baan tegayaa kabacdi waxaan leeyahay new file then file baan ku noqonayaa waxaan leeyahay save desktopka ayaan dhigayaa magac baan u bixinayaa waxaan u bixinayaa tusaale lesson 3.html kabacdi waxaan leeyahay save baan leeyahay html ayaan qorayaa title-ka waxaan gelinayaa lesson 3 intan waa intaan hadda sameeyey unbaan dib u sameeyaa maadaama aan doonayo labada page inaan isku xidho laba web page baan rabaa inaan abuuro marka kii hore oo kale un baan abuuraya halkana waxaan ku qorayaa tusaale hal bit tag baan ku qorayaa tusaalahan oo kale oo aan leeyahay ku soo dhawow web page-ka la dhaho lesson 3 intaasaan qorayaa right click baan leeyahay open browse baan leeyahay kan letrkan soo kicinaya waa kan marka web page-kan wuu abuuran yahay lesson 3 baa la dhahaa title-kiisa haddaa aragtid kii horena waa kan lesson 2 baa la dhahaa inaan isku xidhaan doonayaa marka anigoo adeegsanaya attribute-ka la yiraahdo href iyo tag la yiraahdo tag oo labadaba hyperlink-ga loo adeegsado ama isku xidhista labada page waayahay waxaan ku noqonayaa halkan waxaan tegayaa marka page-kayga hore hadda eeg page-kayga hore aan tegayaa b tag-gan waa iska tirtiri kartaa waana deysan kartaa aday ku taala haddaad deysanaysid haddaad iska tirtirisid tusaalahan anigu waan iska dhalidayaa b tag-gan kabacdi halkan aan tegaya waxaan qorayaa tag waa tagga lala isticmaalo href oo sideedaba attribute-ka mid ogow attribute-ku waa sifaduna gaarkeeda isuma taagto waa inay cidda la sifaynayo la socotaa markasta tagga la dhaho waxa la yiraahdo href page-ka ayuu isku xidhaa laakiin keligii page laba page iskuma xidhi karo oo link ma samayn karo hyperlink ma samayn karo ilaa uu raaco tagga la dhaho tag mooyaane waayahay tagga furan baan tegayaa kabacdi waxaan leeyahay href double equal baan dhahayaa kabacdina double quotation baan furayaa xidhayaa halkan waxaan gelinayaa marka file-ka aan doonayo inaan file-kaygan ku xidho page-ka aan doonayo in link-gaasi i geeyo ayaa halka magaciisa gelinaya waa page-ka la dhaho lesson 3 halkan waxaan gelinayaa marka lesson 3.html midna ogow labada file ee isku xidhaysa waa inay isku folder ku yaalaan hadda aniga labadan page waxay ii wada yaalaan desktop-ka haddii aysan isku page ku oolin waa inaad ka horeysiisaa page-ka kan yaallo waa inaad ka horeysiisaa xale folder kan yaallo waa inaad ka horeysiisaa intaa marka aad qortid halkan waxaad ku qoraysaa linkiga aan qoraalka kuu soo bixi doono hadhowto tusaalahan waxaan leeyahay ku dhufo halkan si aad u aadid lesson 3 waay intaas samaynaysaa intan marka waa qoraalka kuu soo bixi lahaa qoraalkan isagoo linkiya ayuu kuu soo baxaya linkiga markaa ku dhufatid waxaa lagu geenayaa page-kan lesson 3 la dhaho oo kan ah ayaa lagu geenaya waayahay waan soo kicinayaa marka right click baan leeyahay open browse baan leeyahay marka waa kan marka linkiga waa ii samaysmay aan idiin soo dhaweeyey sidaas si fiican ugu aragtaan waa kan linkiga waa ii samaystay linkiga maxaa la dhahaa ku dhufo si aad halkan si aad u aadid page-ka lesson 3 linkiga haddaan ku dhufto hadda waxaan taagnahay lesson 2 soo ma jeedid lesson 3 baa la ii furayaa waayahay marka linkiga ku dhufto fiiri waxaa la geeyay lesson 3 baa la geeyay marka href ujeedkeedu waa intaas waa inay laba page isugu xidhaan ama inay hyperlink kuu samayso khaasan maaha laba page inay isugu xidhaan laakiin waa in ay kuu samayso linki waa inay kuu samayso linkigaasoo markaad ku dhufatid destination ku geynaya waay labada attribute ayay ahayd cashirkeenu ku saabsanaa attribute koowaad waxaa la dhahaa page color ka labaadna waxaa la dhahaa href mid background-ka ayuu bedelaa oo baariga ayay background kaga bedelay midna hyperlink buu kuu sameeyaa ama link buu kuu sameeyaa
waynuna samaynay oo laba page baynu isku xidhnay linki baynu samaynay linka markaan ku dhufanayna page kale ayuuna geynayay intaas waa casharkeena labaad ama waa tusaalaheena labaad aad iyo aad baad mahadsantihiin waa inoo iyo tusaalaha saddexaad asalaamu calaykum